qaraxii dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood kusoo dhawow barkulan TV haddii tahay markii kuugu horeysay channelka soo baqato subscribe like share comment aad baa mahadsantahay fanaanka maxamed saciid biike oo bandhig faneed ku qabtay magaalada London ee wadanka Ingiriiska ayaa ka hadlay qaraxii 2 cisho ka hor ka dhacay magaalada muqdisho qaraxaas oo ku dhinteen in ka badan 80 qof kuna dhaawacmeen dad kor u dhaafaya 100 qof maxamed saciid biike ayaa sheegay in magaalada muqdisho aanu ka dhamaan doonin qaraxu ilaa intii ka aqoonsanayaan jiritaanka iyo madax banaanida Somaliland waxaana fanaan maxamed saciid biike oo arintaasi ka hadlayay yiri waxaan ka codsan lahaa inay Somaliland sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u ogolaadaan ictiraafkooda qaraxii dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood muqdisho haddii la iga maqlay waxaa loo lahaa Somaliland sii daayay haddaan la isxaqirayn waa dad jira madaxweynayaal fara badan soo maray la isma qariyo anigu cidna kama hibayso Somaliland ha noolaato فتح ناصر بركولن TV مقالة داركيسة